السلام عليكم ضمان جنرالka Munir Mercy saaxiibada ku xiran soo dhawaad waa saaxiibkii Munir waxaan rajeynayaa inaad nabad qabtaan subax wanaagsan galab wanaagsan maqrib wanaagsan waqti walba ay ku tahay maanta waxaan rabaa inaan soo duubo vlog ila socda waxaan aadayaa goobteeda waxbarasho jaamacadda soo dhawaada video qurux badan ayaan soo diyaarinayaa السلام عليكم mar kale soo dhawaada واو تيمكيga Munir Mercy Generalka igala socota waa kana waxaan joogaa goobteeda waxbarashada jaamacadda inta muuqaal ma soo duubin waxbarashada lagu mashquulsan yahay marka jaamacadeedana waa tanaa vlogana ugu talagalay xisada koowaad hadda noo soo dhamaatay marka waxyar haddaan ka hadalno faa'iidada ay leedahay waxbarashada waxaa garan karaa qofka jaahilka ah waxaa fahmi karaa oo ka dharagsan qofka wax bartay tacliinta iyo aqoonta education afka qalaad lagu dhaho ama study waa education aqoon guud ahaan la study waxbarashada marka ku jirtid waa ama learning muhiimad gaar ah ay u leedahay nolosha bini'aadamka markii bini'aadamku wax bartay ayaa waxay gaareen horumar marka hadda ay dadka joogaan marka waxbarashada mar walba way fiican tahay qofka noloshiisa u fiican tahay bulsho ahaan bulshadaas haddii bulsho kale ay ka waxbarasho fiican tahay way ka dhaqdhaqaaq badan tahay wayna ka horumar badan tahay dhan walba waxbarasho noocyo badan ay leedahay cilmiga ilaahay weynay haddii caafimaadka ay bulshada ku fiican tahay bulsho waxay noqonaysaa ka guulaysataa cudurrada iyo waxyaabaha nafaqadarrada keenayo maadaama aqoonta ay heer fiican ka gaareen aqoonta caafimaadka haddii engineering tahay waxaa arkaysaa magaalooyinka bulshadaas ay degan yihiin inay tahay magaalooyin ka duwan magaalooyinka kale ee dunida haddii ay tahay haddii aan ka soo qaadno tan diinta waxaad arkaysaa in bulshada dhanka diinta aad wax u baratay qur-aanka xadiiska fiqiga dhammaan cilmiga diinta waxaa arkaysaa in bulshadaas ay ku fiican tahay dhanka diinta oo ilaahay waxyaabo badan uu badbaadinayo maadaama diinta qofku markuu barto oo ilaahay baranayo rasuulkiisa baranayo waxa xun ka leexanayo maxaa yeelay diinta ilaahay wuxuu u soo dejiyey xikmad ku jirta oo wax walba lagu cadeeyey oo qofkii si fiican u qaata wuxuu noqonayaa qof aad iyo aad maxaa lahaa noloshiisa adduunyada ku badbaada tan aakhirana janno ayuu helayaa markuu camal falo oo diintii iyo cilmigii uu bartay aayadihii axaadiistii wixii ilaahay ka reebay rasuulkiisii ka reebtoomay waxaa arkaysaa in adduunku ku guulaysanayo aakhirana ku guulaysanayo sida hadda aad arkaysaan bulshooyinka soomaalida meelaha ay joogaan inay ka duwan yihiin bulshooyinka kale maxaa yeelay sida aan aniga aaminsanahay aad bay ugu dadaal badan yihiin dhanka diinta qur-aanka ka soo bilow marka cilmiga sidiisa waa fiican yahay qofka markuu wax barto shakhsiyan waa ka duwan yahay qofka aan wax baran bulsho ahaanna marka sida aan ka soo sheekeyna waay marka insha Allah waa isku saxnayna muuqaal kale inaan soo duwan isku dayayaa qoraxda soo baxday meel qoraxan taaganahay waxa la barto vloggan oo socon doona la socda
haddaan gacanta ka sii baxaa vlogana meeshaan ku gabagabeynaa insha Allah kuma santiin daawashada muuqaalkan soo dhawaada waxa waay xisid labaad ay soo dhamaatay muuqaal kale oo soo diiwaa ma santiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi